الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله المبعوث رحمة للعالمين بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعقا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حمدا لله. إلهي بانكم هذين مساجدك جامعة إنه سو كلميي، والله كل جين وحن دونينا ما ركتان إلهينا ندوانو. أئمتنا يا علماءنا خيارتا خير كبدن لمساجدك إنه سو دويسي يا مجمعنا بركيسن كنا هلا يا كنا لا هلا يا أنت نبوحنا بحنا إلهينا ندوانو. يعني إلهي ودوانو وأنا آخرتنا أودي أرجرونو وأدويتنا كقاعدنا diin waxaan ahay ninka ka qaata uu khasaaray. nolosha adduunyadu way bilaabantaa wayna dhammaataa. ilma dhashay haddaad maqasho noloshii adduunyada ayaa u bilaabatay. hebelow dhintay haddaad maqashona noloshii adduunyada ayaa ka dhammaatay. aakhiraduna way bilaabantaa iyadu dhammaad ma leh. haddaad maqasho hebelow dhintay noloshii adduunyada ayaa ka dhammaatay, aakhiradii weyna ka badnayd baana u bilaabantay. hebel baa go-ay inaku markaan maqallo markaaba waxaa la isweydiiyaa dadii adduunye muxuu ka tegay. caalamka samadoo dadka khalqiga ku noole malaa'igtuna waxay isweydiiyaan hebel maxaa ka soo horreeyey. inaku markiiba waxaan isweydiinaynaa markaan maqalno hebel baa go-ay muxuu ka tegay, laakiin malaa'igtu waxay isweydiinayaan maxaa ka soo horreeyey. nebigeennu calayhi salaatu wasalaam waa kay noo sheegay lahaa maydka marka la qaadayo buu nebigu yidhi degta la saarto ee nacashka la saaro, naftaa la sii wada hadday ahayd naf wanaagsan oo ilaahay taqaana oo adduunka dusheeda ilaahay amarkiisa qaadatay hadday ahaydna waxay leedahay anu waan liibaanay horay ii geeya bay leedahay, qabrigayga horay ii dhiga. haddii naftaa la sii wada ay ahayd naf ba-an oo xun oo mujrimada oo dembi badan oo shar badan hadday ahaydna waxay leedahay tani way khasaartay, halkee baad ku wadaan. hadalka naftaasi ay leedahay cid kasta ayaa maqlaysa buu rasuulku yidhi, ilaa jinkiiyo insaga un baanan maqlayn. hadday labada la maqashiin lahaana dadku ismay aasena way argagixi lahaayeen buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. maanta waa adduunya, berri waa aakhiro weeyaan. maalin buu nebigu arkay saxaabadiisa iyagoo meel fadhiya oo sheekaysanaya, laanna saxaabadu bashar bay haayeen. cabdillaahi bin cumar binu khadaab baa lagu yidhi asxaabta nebi maxamed may qusli jireen? haa way qusli jireen buu yidhi, laakiin iimaanka qalbigooga ku jira ayaa buuraha ka weynaa buu yidhi. malaa'ig may ahayna bashar bay ahaayeen, sida innaku aan u shaqaysanayeen, sida innaku reereeyo ubad aan u leenahay si ka badan bay u lahaayeen, laakiin qulubtooda waxaa ku weynayd ilaahay baa ku weynaa, diinta ayaa ku weynayd, aakhirada ayaa ku weynayd. maalin maalmaha ka miduu nebigu arkay jamac asxaabtii ka mid oo meel iyagoo fadhiya markaa ay sheekaysanayaan oy dhoolla caddaynayaan ee qusquslayaan. markaa buu nebigu ku yidhi low aghartum dikra haadimi ladaat la shaqalakum cama araakum canhu, yacni almowt. haddaad macmacaan dumiyaha xasuustiisa iyo sheekadiisa aad badsan lahaydeen buu nebigu yidhi qosolkaa aan nigu arkaayo waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. haddii
أصحابتي النبي محمد أيوب بهذين مرول بينه النبي قدول جوجو وإلهي حسوسيو ودمشق حسوسيو وآخرة حسوسيو إنكم ما أنت الزمن كان جوجنا زمن الفتن زمن فتنتي هي مشاكل كأيبتين هي فساد مرول بقويا لنا انتين وقباهي بدلنا هي أصحابتي النبي محمد إن مرول بلين حسوسيو إلهي لو كلن كيسا آخر إن جرت إن لو حسوسيو إنه قبر كادم بي إن لو حسوسيو وأرن لقب مارمان وكل جنا نو ضباهنا هذا بدل الله إذا أبو النبي يقول مع دميها وركي سي شيكديسا قصلك أن نقول أركا يا أبو النبي يقول عليه الصلاة والسلام ما ذا لاشان ما نتقصشان واتكم مشغول الله إذا أبو النبي يقول عليه الصلاة والسلام واجي بريء يقبل كده عبا مالين كستي وحو بني آدم كوسي دوانيا وقبر قويان قبر قونا مركا أوحلا يا أوحلا هاي أنا قرقي كليغا أيانا هاي أنا قرقي درحيغا وصاحبك هابانا هاي أنا قرقي مدوبابانا هاي waxaad iga shaqaysato un baad soo dhiganayso iga heli doontaa nin reer Madiino Ansaariya janaasadiisii buu nabigu raacay calayhi salaatu wasalaam markii qabrigii la galiyay ilka la dul dhigay ayuu nabigu saxaabadiisii ku yiri istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al bu nabigu calayhi salaatu wasalaam walaakin ilaahay dambi dhaaf u weydiiya su'aashii qabriga hadda la weydiinayaaye qowlka xaqa in lagu sugan ilaahay u weydiiya حتى سؤال قبرك اللي ويدين يا ابو النبي عليه الصلاه والسلام وسؤال قبرك ومحي وصدح ذا سؤال ودويان من ربك من نبيك ما دينك مر لي مركا قفك انكو ان دغنا قبرك ان كايمنو كودن بيا كسو دقاقيا شنقدي سلام مقاشين ابو النبي عليه الصلاه والسلام لو ملك با ايمان دونتا الفتانان دنا way fadhiisinayaan qofka saddex daa su'aalood oo qof walba weydiinayaan hadduu boqor yahay waa la weydiin hadduu caalim yahay waa la weydiin hadduu maaragtaane weli yahay waa la weydiin hadduu faasiq yahay waa la weydiin bashariyada adduunyada ku nool oo dhan saddex daa su'aalood waa la sugi doonaa man rabbuka ayaa ku rabbaynayay ayaa ku quudinayay ayaa ku arsaaqayay ayaad caabudaysay ayaad baryaysay ayaad rajaynaysay ayaad tala saaranaysay ما دينك دين تادو محاي هاي دقن كاغو محوها محاد دقن كدغتود كو دقميسي من نبيك نيغلاي نيغا سو دخ سارينا محادو تقاني marka qofka muuminka adduunyada dusheeda ilaahay garanayay ee iimaanka qabay ilaahay baa yuthabbitu Allahu alladheena aamanu bil qawli thabit fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa yawma yaqumu al-ashhad ilaahay tabaaraka wa ta'ala qofka muuminka iimaanka qaba saddexda su'aalood ee qabriga qof walba lagu weydiinayo ilaahay baa qofka muuminka ku sigi doono ilaahay baa jawaabta haleeshin doono walaalayaal ilaahayna hay nagu sugo allah hay nagu sugo allahna inoo dhibireeyo saddexda su'aalood baa qof kasta la weydiin doona marka muuminka adduunyada dusheeda ilaahay kaga baqaayay ilaahay ma arkin laakiin rumee مخلوقا كو موغدا مخلوقا دركيسا لكن خالق لما اركا دونك انت لا جوج جدكا دركيسا لكن روحدا لما اركو ادويدا دركيسا لكن اخردا لما اركو انت دونك لا جوج منافعدا لعقتا دركيسا لكن منفعه الصلاه دي منفعه الثواب كما اركيسد وغيب اخرتا لغو توسين دونا شيغا ما انت مشاهداتك انو موغدا ايا هدوت ولا نقون دونا مغيبات wax ka qarsoomay buu noqon doona shayga qaybka maanta ka qarsoon waxa uu noqon doona wax hortaada imaadod aragto ayuu noqon doona maanta adduunyada ay noo muuqato aakhirada ay noo muuqato laakiin qofku markuu adduunyada ka intiqaalo dhinto laqad kunta fi ghaflatin min hada fakashafna anka ghida'aka fabasaruka al-yawma hadid waxa la oran doona daahi xijaab ayaa ka saarna noloshan laakiin maanta daahi xijaabki ka saarna waan ka qaadnay aragaaguba waa hadid ba qofka la oran doona oo adduunyadii baa noqon doonta qayb bay noqoni doonta ciyaalkiisii iyo dumarkiisii iyo daarihiisii adduunyadiisii iyo lacagtiisii waa laga qarini doonaa waxa markaa uu arki doonaa camalkii adduunyada uu soo qabtay hadduu shar ahaana wuxuu arki doonaa cuquubadiisii iyo cadhadiisii hadduu cuquubadii ilaahay cadhadii buu arkayaa hadduu khayr ahaana thawaabkii ajarkii iyo khayrkii iyo xasanaadkii buu arkayaa adduunyadii waxay noqonaysaa wax kaa qarsoomay aakhiradiina wax ku muuqatay noqoni doontaa markaas marka ilaahay tabaaraka wa tacaala adduunka inta aan joogno lama arki karaayo laakiin aayaadka ilaahay baa la arkayaa wa min aayaatihi al-laylu wan-nahaar habeenku waa aayad weeyaan aayad waa maxay macnaheedu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo maalintu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo guga iyo jilaalku waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo
noloshiya geeridu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanaayo labiyo dhidigu waa calaamo jiritaanka ilaahay lagu garanaayo faqriga iyo qinadu waa calaamo ilaahay lagu garanayo jiritaankiisa caalamkan siduu u socdo waxaad ka dhex arkaysaa in ilaahay nidaamkiisu caalamka u shaqaynayo laakiin nidaamka ilaahay caalamkan uu ku maamulayo waa nidaam qayba waa laynaga qariyay ma arki karayno sida ruuxda jidhka ku jirta ishaadu aysan u arki karaynin gacanta dhaqdhaqaaqeegaad arkaysaa dhegta maqalkeegaad arkaysaa lugta socodkeegaad arkaysaa madaxa dhaqaaqiisa aad arkaysaa laakiin ruuxda bini aadamku ma arki karaan laakiin gaal iyo islaam halka markuu qof ka dhinto intuba qofkaa ka dhintay way u ooyaan haddaad tidhahda maxaad la ooyi waa kan qofkii gacan kama gu'in lugna kama gu'in dheg lagama goosan oo dhan yahay jidhkiisii oo dhan uu dhan yahay maxaad la ooyi haddii la yidhaahdana kulligood waxay leeyihiin shaygii qiimaha lahaabaa meesha ka baxay shayga qiimaha le waa maxay waa ruuxdii oo ruuxda maad aragtay may sead u garanaysaa qalbiga ayaa garanaya alqalbu yudriku alxaqaa'iq bay yidhahdeen culammadu qalbiga ayaa xaqiiqada soo taabanaya shaygii qiimaha lahaa waa ruuxda weeyaan ruuxdu waa qayb waa lagaa qariyay ma arki karaysid laakiin inay jirto waxaad ku garanaysaa xarakaat alacdaa caalamkan aad arkayso dhan waxa weeyaan waa kaljasad weeyaan nidaamkan caalamka oo dhan waxaa ku hoos jira nidaamka ilaahay iyo nidaamulqayb la yidhahdo marka muuminkii iimaanka qabay intuu adduunyadan joogay buu ilaahay cilaaqa la lahaa su-aasha u horraysa marka la yidhaha man rabbuka waxuu yidhi aniga rabbigay waa allah buu leeyahay meheradaydu ima rabbaynay allah baa i rabbaynayey dukaanku ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey beertu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey dowladdu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey xooluhu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey anu kuma noolayn waxaan adduunyada dulya alloo dhane bal amarka ilaahay baan ku noolaa laakiin su-aasha dadka maanta haddii makarafoon la qaato la yidhaha war maxaad ku nooshahay nin walba halka ay asbaabtu ay ka soo gasho dakhligiisu halkuu ka soo galabuu markaaba kuu sheegay mid muxuu ku odhan wallaahi meherad yaroo halkan ku taallaan ku noolahay mid wuxuu ku odhan ciyaalkiibaa dibadda u baxay oo kuwaasaan ku noolahay haddayna baxeen maba noolaanayn mid muxuu ku odhan beer yar baan ku noolahay beer mid wuxuu ku odhan aqal yar baan noo karaysan oo ku noolahay reer jibuutina waxay yidhahdeen lataraadkii baan ku noolay lataraadkii macaashkii may waa inaad tidhaahdaa ilaahay amarkiisaan ku noolahay annagu alladii yuطcimunii wayasqiinii waidaa maridtu fahuwa yashfiinii والذي يميتني ثم يحييني وأصول الإيمان أصول العقيدة وأين قفك قرتا دوذا هذا استعمال ليس شفاء الله مسعته شفاء حق إلهي بكتم هذا دكان قاقي مهرد هذا يسوق قاقا وأسباب وياه لكن رزق حق إلهي بكئمنا وأين أدقرتا ربك والله وياه معبودك وإلهي وياه كعبادة متيستوى إلهي وياه كبريده متيستوى إلهي وياه كرجاها متيستوى إلهي وياه كعبسده متيستوى إلهي وياه كليجي رجي كليجي كعبسو كليجي بريو بعد هذا كليجي وشهو ربي جاي والله دين تيدنا الإسلام رقم كيجو إسلام وحكي لعنكم الرقم وحكي لما أمسني دين بانو نولهي دين بان برانيا دين بان كشقينيا قفك دين بان كجعلانيا دين لأنا وكنا عيا من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإمام برسول كويري نكا هدوح بحن إلهي درتي أبحن هدوح منعن إلهي درتي أمنعن هدو عد جعلان إلهي درتي أجعلان هدو عد نعي إلهي درتي أنعي كاس إيمانك وعندما ما يسترتيب النبي عليه الصلاة والسلام وأين النقطة قف لله أنه تاريخ الصحابة قلت على سيرة علي بن أبي طالب ننبايد هل من مبارز وحل معركة المسلمين دون حقا أي جوغان قال دون حقا أي جوغان أيو يري ننكي أقوي تالو إنا قال هذا أيا صودع يري هل من مبارز أيا معركة يقول صودع أيا علي بأودعي رضي الله عنه علي بن أبي طالب ننكي انتو قبتيبوا لك دي مرقو سيفتي قاتو يري قلي مرقو سننا علي بن أبي طالب وننكي كورف ديبو قنوفو جيغا لغا تفاي مرقاسو علي قنوفا لغو تفاي وجيغا لغا تفاي قال كينا دولكو جيفا علينا سيفتي بو هايستا قنوف با لغو تفاي علي وصريا
وككعي علي صحابتي waxay ku yiraahdeen ya Ali maxaad uga kacday baa lagu yiri gaalnimada ninkan diinna waad ula dagaalamaysay adigana qandhuufo kugu tufee war marka hore Ilaahay dartii baan u dagaalamayay hadda cara ay soo gashay buu naftayda darteed inaan u dila ka baqay buu yiri lillaahiyad waxaan qaban Ilaahay dartii baan u qaban cidda jeclaan Ilaahay dartii baan u jeclaan cidda nici Ilaahay dartii baan u nici waxaan bixin Ilaahay dartii baan u bixin waxa khayran sheeg Ilaahay dartii baan u sheegi khayrkan dhageysan Ilaahay dartii baan u dhageysan waa inaad noqotaa qof diiniya oo diintu ay xakameynayso si su'aasha qabriga kugu dhib yaraato tiraado aniga diintaydu waa islaam markaas nabigeena Muhammad alayhi salaatu wasalaam baa la hor keenay oo la oran doona maxaad u taqaanay shakhsigan markaas uu muuminkii leeyahay waa nabigeeygi Muhammad alayhi salaatu wasalaam saddexda su'aalood muuminku markuu qabriga ka jawaabo ayaa samada laga dhawaaqay oo la oran doona an sadaqa abdi adoonkaygi run buu sheegay afrishuhu min aljanna firash jannada ka soo qaado u gogla walbisuhu min aljanna dar jannada ka soo qaado u xidha waftahu lahu baaban ila aljanna albaabna jannada uga fura jannada halka ka daawaday baa la oranayaa dulkaad ku celisay meydka dhulkaan ku aasnay minha khalaqnaakum wa fiha nu'iidukum halkaad ku aastay waa dhulka dhexdiisa weeyaan inna kitaab al-abraar la fi cilliyin jannaduna waa fawqa 7 samaawaat halkaas qofka muuminku jannadiisa ka daawanaya sida inaku baaladan yaray imka aan haysanay mobilka ijaabada aad ku haysatid qofka adduunyada halka ugu dambeeyay jooga maqal iyo muuqaal halka aad uga daawanayso qaaradda Ameerika qofkii joogay ayaa adigu halka jooga maqal iyo muuqaal aad ka wada hadlaysaan muuminka qabriga dhexdiisana nabiyullaahi Muhammad alayhi salaatu wasalaam ayaa inoo sheegay yiri qabriga dhexdeeda daaqad looga furaya halka uu ka arkay jannadiisa iyo naciimtiisa iyo xurul ayntiisa markaas la oran doona iska seex qabrigu waa meesha muuminku ku seexdo weeyaan maxaa qabriga loogu dhex seexanayaa laana jannada dhexdeeda hurda ma jirto annawmu akhul maut wa ahlul jannati la yanamun ba nabigu alayhi salaatu wasalaam geeridu dhimashadu hurdadu waa geerida walaasheed ahlul jannuhu jannada haday galaan ma seexanayaan buu rasuulku yiri adduunyadan maalintiina waa foofi waa macaash kasbi xalaal ka soo shaqaysan waad cibaadaysan waad soo daali habeenkii baad yar seexan sidaalka lagaaga bixiyo ahlul jannuhu maxayna la seexanaynin waxay la seexanayn waa ku sheegaya la yamassuhum fiha nasab wama hum minha bimukhrajin ba ilaahay yiri ahlul jannuhu jannada hadii ay galaan jannada dhexdeeda wax tacab oo daalo soo gaaraya ma jirto jannada ay galeen kuwa ka baxaya ma aha marka ma badaalayaan ma walwalayaan ma walbahaarayaan ma gaboobayaan ma dhimanayaan ma bukoonayaan waxay tabanayaan ma jirto waxay niyada ku qabtaan waa la hor dhigayaa marka wax daalinaya oo ay u baahdaan inay seexdaan si daalku uga baxo maba jirtaba marka meesha muuminku ku seexanaya waa qabriga weeyaan ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وإلهي جل وعلا في سورة ياسين إنه شيء سورة أفوفينا بإلهي إسرافيل بسورة أفوفايا ده نقول كي صبح دونا ده حق إلهي والله سؤرين دونا مركز قف مؤمن إيمانك لها وحولي حي وما حي لا يا هرددي نجسوكعي وان جفني وان هردني هردد محن نجسوكعي بولي markuu arko khalqigii oo banka qiyaamada sidaas ku dhex socdana wuxuu leeyahay maanta waa maalintii nabiyadu ay noo yabooheen ilaahay iyo rasuushiisuna run bay noo sheegtay buu leeyahay maanta waa maalintii la noo yaboohay yawm alqiyaama weeyaan marka noloshan adduunyadu waa maalin iyo habeen nolosha qabrigu waa habeen nolosha qiyaamuhuna waa maalin kaliya nolosha adduunyadu waja'alna al-layla wan-nahara آيتين وآية لهم الليل نسلخ منه النهار بإلهي آية الليل آية النهار نرشد الدنيا كنا لهي ومالين يا هبين مالين تينا وفوفيسا هبين كينا ونسانيسا واتسيحانيسا قبرك هدي لقلنا وهل هبين ويان صبيحتها يوم المحشر وبرق يقولوا ومالك قيامها ويان يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر
خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر بإله حيري نعم الدنيا انت اللي جوغو واحد جوغي سوا مالين يا هبين قبرك هدي لكو دغنا وهبين كليا هبين كاسو نبي نو شيغو يري قبرك وا لبا ميد ويان اما وروضه من رياض الجنه اما حفره من حفر النار مؤمنين بربره جنة كميدا لوغا دغيا قالكينا waxa looga dhigaya godgododka naarta kamida looga dhigaya dina uu hurda oo 70 sano adduunyada uu soo daalay ayaa la leeyahay halka ha ku daalo ha ku nasto min aadam alayhi salaam laga bilaabo ila joogadeena wixii adduunyada bani aadam soo maray caalamul barzakh bay ku jiraan inna way hurda way nasanaysa oo waxa qabriga dhibaato kuwa kale ku haysta war uma hayaan way hurdaan maalinka qiyaamaha suurta la afuufo bay qabriga ka soo bixi doonaan laysa ala ahli la ilaha illa allah وحشة في قبورهم ولا حسرة في نشورهم وكأني أنظر إليهم وهم ينفضون تراب على وجوههم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور نبي عليه الصلاة والسلام وكيلها ذاتك أدونك دوشيد لا إله إلا الله أهل كيغا النقضة الله ينقدق قبرك مركي قلان كوكليوب مايان maalinka qiyaamaha markay soo baxaan xasrad iyo nadaamo iyo murug galiya arki maayaan waxaad moodaa buu nebigu inaan u jeedoon arkaayo ayagoo qabuurihii ka soo baxay oo ciidda intay iska hurgufeen ay leeyihiin alxamdu lilaahi aladii adhaba cana alxasan ilaaha waxaan ku mahadinnaa naxdintiiyo murugtii annaka naga qaaday rabbigay waa kii dhaafitaanka badnaa ee shakuurka ahaa weeyaan ee afcaasha wanaagsan ee addoonku la yimaado raalliga kaga noqday weeyaan لأنه يصبح يوم القيامة ما لنت سرجوجا ويوم قرآن يوم بوشيجا هبين مشيجين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم الجمع يوم التغابن يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم التغابن يوم الطامة يوم الساخة هبين ما مغليسيد هبين كدودون واكاس قيامها مركو إلهي كورمايو ومالين وين هبين مال ومالين كليا وفي يوم كان مقداره 50,000 سنة يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم إلهي تبارك وتعالى يوم قاسنا قرآنك إلهي نوغو الشيغي وكنتم كنوا صندو ابن عباس رضي الله عنهما مفسر كي قرآنك وحو كفسروا يري أفرتن كنوا صنو على الجوغي توبان كنوا صنو حسابتا كل ماني دون تبو يري أفرتن كنوا صنو يا سيد الله تاقنان دونا توبان كنوا صنو حسابتا كل مان دون نين عربي ورير بادية أيا سرك عير يا رسول الله مالك قيامة خلقك أيا حسابي دونا مرقا سوري إلهي با حسابي دونا ربك حسابي دونا مرقا نكي عربي انتو سيجي استيبو يري نجونا ورب الكعبة كعبة ربك أيا كل دارتي وان بدبالني بودي وان نبت قلي بودي مرقا النبي يقول صنعو سيادو كن نبت قشيبو كيري بليشك وعلوا وكريم إلهي وكريم حطو دون اسكك أيا عفين بودي معيد باسكا قبصان يسيبو يري وكريم كريم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم بنبي من إنك بدا مجرو حتى جرى نبو رسول كل هي ربي جيبوا قيامه الله كل مدونا الدونك يا ربي جي مالين عيد وكلاف علينا يسمى جرته لغة عربية الله واضح الله يا حاجة ميدكتو ايجي عمل جيسيبو اركي حاجة بدحدو ايجي عمل جيسيبو اركي هورتيسو ايجي نارتيبو اركي فاتقوا النار ولو بشق التمر ابو نبي قول عليه الصلاة والسلام نارتا قاشان كسميست ابو نبي قول قاشان كيشا تمر جيحيد وصدق الله بحسان كولي نقطنا تمر جيحيد
ولو بشق التمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة أبو نبي قولي تمر جاه تمر إني كان هلين أبو نبي قولي هذا الكون أكسن أكو هذا كلمة ونكسن كو هذا سبحان الله وكلمة ونكسن الحمد لله وكلمة ونكسن أمر بالمعروف وكلمة ونكسن ذكرك وكلمة ونكسن استغفرت وكلمة ونكسن لا إله إلا الله وكلمة ونكسن ولا القاقا مسلم قد خيرك أبو الشيطة وكلمة ونكسن منكر كون مدى كرمتان وكلمة ونكسن كلمة الطيبة صدق أبو نبي قولي عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين آياتي مرقو النبي يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بيت يقول النبي صلى الله عليه وسلم مالك قيامها ضدك والله سو حشرين دونا أيكو عقاقا أو بلا درأة أو كبلاءنا أو مركز النبي يقول عليه الصلاة والسلام أيكو عقاقا كبا موتان درنا موتان وفوا البباردي سيبا كتالا واسدي لقو دلي ويان مركز عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رقي دمر مالنتاس ما لسدح سعونيا هاوا لسدح سعونيا قفك كلمونا إيجين مركز أبو نبي يا عائشة قفك عكس عدم مالنتاس من نمبا ما قبر با من نقبا ما بإيجي يبو رسول قد هم بقى مجربودي هورتي سواحة على النار دي جهنم قفك عطاء السلمي رحمه الله نكال أورنجري وهو أن مروق بدن بوها مروق بدن سلف الصالح صد سنة بالي نكاس دولك مويان عرك ميجي مركز اللغوري مروق تم بدن وما حيبا اللغوري ما دتكن وحي اوغان با ادغو اوغاتay ba laga yiri dadka aniga waxba igama galine taydan anigu aan ka hadlaya waxaan ni sheegaya al mawt fi unuqi geeridi ba qorta ii suran wal qabru bayti halka la dhigayana waa qabriga weeyaan wal qiyamatu mawqifi meesha la joojinayna waa banka qiyaamo weeyaan wa ala siraati tariiqi wadada la marin doonana waa jidka siraad weeyaan wa rabbi la adri maada yaf'alu bi rabbigay wuxuu igu sameyn doonana kama warqabi buu anigu inta soo marxala ninka ay sugayso isagu haduu qosle ha qosle buu yiri anu tayda ka waramaya buu inta noolahay oo in ba nolosheeda ku dhamaysan buu yiri maanta waa adduunyo baritoola waa aakhiro weeyaan camalkaagaad la dhaadhacaysaa maxaad wadataa maxaan wataa anigu maanta أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها شدة قيامة مركو نبي قالوا كورم عليه الصلاة والسلام أي تري يا رسول الله مالك سرجوك أيوات كي سكر يبي كتر من يقوى أي كر يبي كتر كنت كنا صنبه مرقاب النبي يقول يا عائشة وفق مؤمن كإيمان كله إيه أدوية دوشة إلهي كسو أضاعي والله فضيدين صلاة دفرت كإنت تكتاني لك بابنك قيام الله قد يقولي انت تكني صلاة المغرب 6 دقيقة لبي 8 دقيقة صدحي 8 دقيقة مؤمن كإيمان كله إيه أدوية أنتو جوجا كساي قاتي إيه إلهي تبارك وتعالى أكتيس وحسير دكتي إيه آخرنا كسي حساب تمي إيه تلابدو قاد يبا إيه آخر ديس هذا اللي كنتو كسوا بحين قفك مؤمنك آخرتو إيغا دقاني سينتو نبحين آخرتو إيغا ماشو مريو آخرتو إيغا ماشا عنو السعودة ما مال آخرتو إيغا داوا عيسابا مسوا مال آخرتو وحيط رئيس هذا اللي إيغا صوبحايا ما هذا الآخرتو إيغا داوا عيبا oo dib ii geysanaya hadhow toole mise waxa la aakhiradeeda ku badbaadayo dhaqaalahan bixinayo ma dhaqaalaha aakhiradeeda ay kabayaba oo aakhira ku badbaadayaba oo meel fiican buu igu dhacaya mise aakhiradeedii buu dhaqaalahaas iga bixinaya oo ka qabsaday inta goorta muuminku uu xisaabtamaya muuminka adduunyada dusheeda ilaahay ku soo adeecay ku soo caabuday salaada yare faradka inta uu tukanayay in la eg baabanka qiyaama looga dhigaya dadkii ilaahay yaqaanay daraariya habeen aakhirada horta la yak aakhiradu qofka haday horta la maxay ku aakhiradu kugu saameynaysa noloshaada aakhirada maxay kugu reebaysaa ma taqaana waxa doonta ku hadli kari maysid waxa doonta eegi kari maysid waxa doonta cuni kari maysid sida doonta u noolaan kari maysid waayo
dareenka aakhirada qalbiga hadduu galo dareenkaasaa xumaanta oo dhan kaa joojinaya wanaag oo dhan kuu diraayo dareenkaasaa qofka qabanaya qofku inuu macsiyadda waxa kaa qabanaya waa dareenkaasi waa iimaan weeyaan iimaan ilaahay rumee aakhirana rumee ilaahay rumee aakhirana rumee waa labada nebiyadu dadkay ugu yeedhayeen nebi kastoo adduunka la keenay ummadda ilaahay xaggiisu ugu yeedhay aakhiradana xaggaygu ugu yeedhay waxa ilaahay kaaga raalli noqona waa iimaan iyo camal saalix waxa aakhiradaadu ku badbaadaysana waa iimaan iyo camal saalix maalin maalmaha ka mid a ayaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam magaalada madiinuu soo maray wuxuu arkay markaa saxaabada qaar ka mid a aqal yaroo cariisha markaa ay dhisayeen markaa buu nebigu yidhi maxaad haysaan waxay idhahdeen aqalkan baa soo yar duusayo waan la tiirinaynaayo waan la dhidhisaynaa markaa buu nebigu yidhi wallaahi anu ma arko ilaa saacaddaa ka degdeg badan buu ka yidhi saacadda qiyaamada ka degdeg badan buu ka yidhi intaad aqalkaa dhisaysaa malagii suurta afuufayey waa israafiil calayhi salaam ayaa buuqii qaatay buu rasuulku yidhi foolintii buu qaatay lugihiina u kala fidiyey markaasuu sidaa u haystaa idan ayuu sugayaa idan saxaabada rasuulku hadalkaa markay maqleen waxayba moodeen inay saacaddu berri ay dhacayso oo hadda suurta lagu dhifanaayo markaasay yidhahdeen yaa rasuul allah maxaan idhahnaa noo sheeg markaa buu nebigu yidhi waxaad tidhaahdaan xasbuna allahu wa nicma alwakiil dhahda wallaahi markuu aakhirada kala hadlaayo markuu jannada kala hadlaayo markuu naarta kala hadlaayo markuu qiyaamada kala hadlaayo dareenkoogu wuxuu ahaa si waxay jannadiiyo naartii hadda ay arkayaan isha ku hayaan innagana maanta maasha allah dadka muslimiinta dareenkaasi maanta waa nagu yaryahay ilaa man raxima rabbi mooyaane lanna qalbigan uu saamoobaa qalbigu إن القلوب لا تزدى كما يزدأ الحديد إذا أصابه الماء برتا حديدك بيوه هذي تابتان دحل بيكون ريبان بيوه قلبك بن هذا كنا دحل بو يشاء ها قلبك دحلينا يا وحنا دقيس قلبك سامين يا وحنا دقيسين قلبك سامين يا وحنا تكوه ليس قلبك سامين يا وحنا تكفكر قلبك سامين يا وأفرت قصبضات قلبك بهذا كقصعته إلى أفرتاس صابات القلب بعلماء هذا وعاد يكتب قلبك قلع وعاد كهذا قلبك قلع وعاد كفكرته قلبك قلع وعاد دقيسته قلبك قلع قلبك دحل كم حالك قبية لما الشيء بعلماء هذا لما الشيء بقلبك دحل قلبك قبية قرآن آخر سكي سؤال الله بديو يا آخر ذو أنت بدل لا شك شغل الله عز وجل لا شك labada maanta may nagu yariin mise way nagu badan yihiin ya qur-aanka akhriskiisina waa nagu yaraaday aakhirada sheekadeediina waa nagu yaraatay bal sheekada aakhirada saxaabadu maskiidka intay ka qaadaan bay suuqa aakhirada kaga sheekaysanayeen dadka muslimiinta zamankan joogana sheekadii adduunyada intay ka soo qaadaan dibadda ayay maskiidka dhexdeeda keenayaan isbeddelka nagu dhacay ayaga suuqa مساجد سوق المسلمين كمصلاهم بود علي بن ابي طالب سوق المسلمين اسواق المسلمين تو واسد مساجد او كلا ويان سدا مساجد الهي لوغو وينينايو ايا زمنكي نبيغا سوقنا الهي لوغو وينينايي سدا مسجدك دحديسا الهي لوغو عاصيين ايا سوقوغينا الهي لوغو دحاسيين إنكنا زمن كنا مانتا شيكدي دبادة تالي أيا لغا يابا إن لكنا مسجدك قدوهيس نبو أركي النبي عليه الصلاة والسلام مسجدك دحديس بايلاه كيبو هنايا مرقابو النبي يقول إلهي كوما سوعن يبو كي هذا أركتان بو النبي يقول إنن مسجدك دحديس بايلاه يبادي كيبو هنايا وعاتر هذا إلهي كوما سوعن يدا هذا أركتانا nin masjidka dhexdiisa ganacsi iyo tijaaro ka dhex samaynayana waxaa tirahdaan ilaahay kuma barakeeyo dhahada inama buniyat almasajidu lima buniyat laha masaajida wixii loo dhisay baa loo dhisay buu rasuulku yidhi
nolosha masaajida taalabay culimadu leeyihiin ayaa la rabaa in dibadda loo saaree nolosha dibadda taalla masjidka in la keeno maaha عهدي نبينا عليه الصلاة والسلام يا عهدي صحابة ذاتك مسلمين نولش مسجد كأيكو هايستان أي دبده ولا بحال هل كان إلهي بك كبقين دبدنا إلهي بك كبقين هل كان إلهي بك كو أمانين دبدنا إلهي بك كو أمانين هل كان آخرته كوينين دبدنا آخرته كوينين والله سيرته كتلا عمر بن الخطاب سوق المدينة تو قلبه ورنجري هل كان إن فريسية إلهي ساعدها الرومين كاليا عبد الله بن عمر انتو ما طفيل بوكو ورنجري إن مري الرعب ورنجري حكيتنا سوقا تجينا سوق يوم صباح هذا أنا مالك قالوا لي نمر الراع هذا أنا مالك سدحات بوري الراع وعبد الله بن عمر إن عمر بن الخطاب هي طفيل وتابعيها مالك سوق مركو دور عيسى مركو سوقي كحل علي وكحل علي بوكيل يا ابن عمر سوق وادنا قيسا مالي والبا بدعنا كما سوى يبستي بدعنا وما يبقيسي بدعنا ما سوى بايعدي ما لا هذا تكون فرديانا نما فريسي ورالكن إن فريسي ورالكن نوبوش كيف وكي ورالكن دين تنقبر شيء هذا صحابة دين بيهاي مرجع ابن عمر باكويل وراك هذا على وش بورلي إنما نقض من أجل السلام وحنوك الله إن وحويان ذاتك إن السلام نوم بنوك الله إن أبوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنوك الله إن والدعويان دعاء بنوك الله إن مسلمين تنو دعينا يقولوا إنه دعينا بقول قفانو دعينا بقول كاسوي نو جوابا والدعاء لقى يا بقول كأولياء إلهي أنت كل حجرته إن إلهي دعاء ذو الله أقبل صلاة المسلمين التي هو معي صلاتين السلام عليكم نبت اليد إلهي يا نحريست إلهي يا بركات إلهي كركاها هذا كي كلا مسلم كواحد كليه أديكنا نحريس نبت اليد إلهي يا نحريست إلهي يا بركات إلهي كركاها هذا بكليه سلامة صلى الله عليه وسلم بقول قفا سلامينا لا بقول قفا سلامة أمة سلامينا وينو جوابيا وحي قرنا يا صحابته إن سلامة مسلمين تعالى الرحمن الإلهي تو أقبلوا إن النبض هلا أو نحريستي هلا أو بركتنا هلا إنكم بقاش كيو بلا عد يا دويد الله كله هم ويا السنة النبي الله كله هاي ولقون ولا نجمر أحسن ما أنت سلامة صلى قدر جيا علي بن أبي طالب بن يمدو كيدي صاحب العيال بان هاي معيشتي بيقو أتكات مركز لعلك تنام بعد صلاة الفجر بكيد ما لها صلاة الفجر كذب آيات صحتها بكيد مركز المي مسحب لعلك تمشي أمام من هو أكبر منك سنا بكيد ما لها قف كاد أول مركز لا صعته آيات هر صعتها بكيد هذا هر مرتاع مركز المي حدنا مركز دعاء سنة يسد ما لقى يا بين اللمد هذا والد الله يدمر أنا دو ويدين مركز ها مركز برتار زاغدا كاحد واتاس لمد والد بعد كودر بور زاغدا كفر ميه ما لها إنكم يقول أحمد كيا جنا يا مي سلام تدتك أي سلام يا برزقك كدحركيين والدك دعاء سود عينين برزقك كدحركيين استغفرت أي بدنيا برزقك كدحركيين صلاة الضحى أي تكنيا برزقك كدحركيين صلاة الضحى عهد النبي عليه الصلاة والسلام واحد موديس صلاة جمع عين لتكنيا مسجد زحمة يعيدك كدحر دينة الإلهي نوم سنين كليا إن آخر ما فعلت نوقف بالعبطة بل إلهي دينة وحي نوسي إن ندون كان يأخران كدرنا كل بقى مركان نورشنا أدوية إنتان هاي سنة وفرصة يعني نضيعنا أدوية الدين هكا قادنو دينتنا أساس كيف هو إيماني يقين ويان يقين إيمانك وامحي إلهي الرماء يقين تنا وامحي آخرتها كل وينات والله هذا آخرته إن لو ويناته دقن كنا توصي ورزقنا حلال نقن ومجتمع ودم بس بدلي وايو لأن مجتمع وحي نقول مجتمع آخرك وحساب تبعي
sidii labadii nin ee xadiiska nebigu noogu sheegay fi sunan nin baa nin dhul ka iibiyey dhulkii markuu gatay waa dhulbeereed buu ahaa uu falay markaa khasna dahaba markaa uga soo baxday jarra min adahab uu qaatay uu la ordo ninkii lahaaba uu keenuu ka yidhi war dhulkaad iga iibisay dahabka inta leeg baa ka soo baxee malaha waad ilowsaneeda iga qaada buu ka yidhi markaasuu yidhi may anigu kuma ogeyn adaa ilaahay kaa siiyey adaa iskale iska qaada buu ka yidhi war waxaan adiga ale iga qaado innaka zamankeenna waa maxay war waxaan aniga ale isii weeyaan teen waxaan ku dagaalamayna dhulkan anigaa leh gurigan anigaa lahaa meheradan anigaa lahaa waxaan anigaa lahaa baa isku haysanaa iyaku waxay taagnaayeen dadku markay hagaageen war waxaan adiga ale iga hoo iyo kaa qaadan maayo may ma dhici karto may adaa iska leh adaa ilaahay ku siiye iska qaado may dhulkan adaa iga iibiyey malaha waad halmaamsantahe adigaa iskale iga qaado waxaan malihi anigu yahay lacagta intan leeg anigu kuma siine may labadii nin intay isqabsadeen bay maxkamadda tegeen maxay isku haystaan kan wuxuu leeyahay xoolaha nin kalaa leh ha iga qaato kanna wuxuu leeyahay war maliye isagaa ilaahay siiyey ha iska qaato qaadigii markaa qaadi fiican buu ahaa qudaada zamankan laga yaaba inay odhan lahayn xoolaha dawladda ale iska keena ilaa qaar baa iska fiican way jiraan laakiin kuwa waxa iska jira dawladda u shaqeeya moogta xoolaha dawladda iska keena alka ka baxay nuguna ma odhan wuxuu yidhi adu maxaa leedahay ubad wiil adiguna gabadh labadaa isku guuriya labadaana xoolaha siiya buu yidhi islaaxu waa cajiib halkaa hadday islaaxdo waa cajiib halkaa hadday xumaato laakiin dhegayso qisad kale saddex nin baa nebi ciise raacday calayhi salaam siday ula socdeen ayay yimaadeen meel bannaanka uu dahab ku yaallo dhaymanku markaasuu nebi ciise ku yidhi waxaan waa dhayman waa dahab waa jawharad markaasay yidhahdeen noo qaad markaasuu nebi ilaahay soo diray iyo adduunya meel ma wada marta buu ka yidhi markaasay dee annakaa qaadanayna dee haddaad qaadataan i raacay meesana waad iga hadheen ogaada buu yidhi diin iyo adduunya isma raacda buu ka yidhi waa nebi zaahidu ha nebi ciise calayhi salaam saddexdii nin way ka hadheen baa la yidhi nebigii ayaan darrada eeg markaasay dahabkii qaateen way la socdeen way la lugeeyeen magaaladii markay u dhowaadeen bay yidhaahdeen haddaan maalin galno waa la naga dhici habeen han ku beegno laakiin waa gaajoonaynaa way tashadeen waxay yidhahdeen laba dahabkaas sii ilaaliso midna magaalada intuu tago cuntahay noo soo qaado yuuna cidna inoo sheegin waa hagaag kolkuu ka dhaqaaqay labadii dahabka ku hadhay ilaa shaydaankiiba dhiigga bini aadamka dhex socdee ayaa wuxuu yidhi mid walba midka kaluu ku yidhi dahabkan labadeennu buu nagu fiican yahe ninkaa markuu yimaado aniguna waan la hadlay waan jeedin adiguna midida halkaa ka geli maydkiisana bahosha ha ku ridno ha ku aasno dahabkana labadeennu ha kala qaadanno marxaba kiina uu sii socdaa shaydaanka isagana dhiiggiisii ku dhex jiro wuxuu ku yidhi dahabkan adigoo buu kugu fiican yahe cuntada intaada soo cun ayakana u soo sumee markay dhintaana dahabka iska qaado maxaa ka dhacay kula tahay meeshaas uu yimiday cuntadiibuu u dhigay isagii bay khaarijiyeen cuntadii bay cuneen iyagiina way iskhaarijiyeen nebiyullaahi ciise calayhi salaam ayaa soo maray dahabku halkii yaalla iyo saddexdoodii oo mayda markaasuu xawaariyiintii ku yidhi adduunyadii ubadkaygu sidaas ku galeen eega buu ka yidhi waa kaas halkaas halka laga hagaagaa waa qalbiga halka laga xumaadana waa qalbiga inna fi ljasadi mudqa idaa salaxat صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب النبي عليه الصلاة والسلام ورياض النبي محمد بن ليه جرك بن هذا وصلت باكو جرتا هدي هاجاكتو جركو دم با هاجاجي هدي باراتنا جركو دم با بانان وحمان تاسنا وقلبك ابو رسولك يدي قلبك انا وح كلمه هاجاجيا قلبك لا عقمه هاجاجسو قلبك وح كليه هاجاجيا ومركي جرت الهي معرفديس معرفة الله عثمان بن عفان الله رضي كان نقضي الضميسي الضون كميدو ويا مالين وعور العقد انقاض أبو ذر الغفاري وقي
hadduu lacagtaa abudar hadduu lacagtaa kaa qaatana xor baa tahay buu ka yidhi xor waan ku xoreeyey abudarna markaa magaalada madiina dibaddeedu deganaa ribdab meel la yidhaah oo cuثmaan binu cafaan baa ku yidhi halkaa u guur adigu waayo waa nin zaahida buu ahaa qarnigii nebigaad mooddaa inuu joogo isagu dadkan taabiciinta diinta ku soo gadaal dambe ka yimid ee adduunyadii la yimaadeen oo dhanna wuu nafinaya isagu dharkii nebi maxamed uu kaga dhintay buu sitaa weli cariishkii nebi maxamed uu ku ogaana uu galaa cuntadii cahdigii nebiga uu nebiga la cunayana weli uu cuna isagu abudar alkhifaariyi radia allahu canhu marka ninkii addoonka ah lacagtii buu la soo orday meesha ma soo dhigan nin baa lacag diidi kara soo sidaa maaha ma nin baa lacag diidaya waa iska jecel laha uu yimiday uu salaamay wuxuu hi amiirkii mu'miniinta cuثmaan baan salaan kaaga sidaa waan ka qaaday bal waran isaga ka waran daar alkhilaafa ka waran masjidkii nebiga ka waran muslimiinta xalqooga ka waran markuu uga warramay ayuu yidhi lacagtana uu ii soo dhiibo wuxuu yidhi abudar u gee lacagtaas markaasuu yidhi maxaan ka dhigaa wuxuu idhi dee ha u kaalmaysta adduunyadiisa markaasuu yidhi ku celiyo waxaad ka tidhaahdaa anigu uma baahniye cid iiga baahi badan baa madiine joogtee ciddaasii ka dha buu yidhi innaga maanta lacag nin diidi karaa uu yar yahay maanta zamankan waayo waxay naga dhaadhacsan lacagtu waxbay tartaa iyaga waxaa ka dhaadhacsanayd may lacagtu wax ma tarto ka wax taro waa ilaahay baahidayda ilaahay baa ii daboolaya xaajaadkayga ilaahay baa ii quminaya waxaan u baahanaha ilaahay baa ii haya cid kale wax iima hayso lacag uma baahni baa ka dhaadhacsanayd iyaka laakiin ilaahay amarkiisaan u baahanahay ducaan haystaa salaad baan haystaa istikfaar baan haystaa qur'aan baan haystaa acmaal baan haystaa qalbiguna wuxuu ku xasilaya waa diin weyn adduunye maaha markaasuu ninkii yaabay war iska qaado may u celi markuu arkay inuu ninka lacag uunan u jeedin inuu qaadanayn ayuu runta u sheego wuxuu ku yidhi amiirka wuxuu igu yidhi hadduu abudar lacagtaa kaa qaato xor baa tahay buu igu yidhi ar walaal addoonnimada ha ka baxe xoreeyo lacagtan iga qaada buu ka yidhi markaasuu kaa qaadan maayo waxaad doonta akhri markaasuu hor iga qaado oo ii naxariiso maxaa kuugu naxariistaa haddaad lacagta iga qaadato waan xoroogay buu ka yidhi wuxuu ku yidhi abudar dhegayso hadalkuu ku yidhi eeg haddaad adigu qaadashada lacagta aan kaa qaaday aad ku xoroobayso anna addoon baan ku noqonayaa buu yidhi marka halka adoo aad ka baxday inaan anu galo ma jecli buu ka yidhi anuu addoon xor aan ahay buuhi xor bas uu yaabay ninkii lacagta isagoo wadu cusmaan u keenay wuxuu ihi waad ogeyd markaad igu lahayd hadduu lacagtaa kaa qaato xor baa tahay waad ogeyd ninkan inuu yahay nin aakhiro nin adduunye u jeeda maaha abudar alkhifaari lacagta dhaliili mayno ha shaqaysan qofka muslimka lama leh laakiin adduunyada gacantaa ku hayso diintaadii aakhiradaadana qalbigaaga ku hayso maanta adduunyadii iyadaa maanta adduunyadii nafuushay saxaabadu adduunyada sida faraska loo fuulo ayay u fuushanayeen iyaku adduunyada iyakaa fuushanaa innakana maanta adduunyadii bay nafuushay maanta waa ka tukan kari laanahay diintii baan ka baran kari laanahay diinteenni wakti ku bixiya bay culimmadu leeyihiin wakti waa ku bixin kari laanahay maxayna haysta waxayna haysta waa adduunyo adduunyada maxay kula doonaysaa adduunyadu inaad iyada la joogto bay doonaysaa hayga tegin bay adduunyada ku leedahay lamana nacayo adduunyada ha ka shaqaysan laguma leh ka shaqayso xalaal mirad noqo laakiin waxaad ogaataa adduunyadani waa balaaq aakhira ku gaadh mooyaane iyada ha ka dhigan hadafkaagii aakhirada iyana kaala weynaan cusmaan binu cafaan allah raalli ka noqdee nin baa nebigu u yimid oo yidhi gabadh baa lay siiyey waxaan ku aqalgalana ma haysto cusmaan u tag buu ka yidhi markaa buu u yimid cusmaan binu cafaan wuxuu arkay cusmaanoo khaadimkiisa ku haysta dubaaradan faynuuskan maxaad u baktiin weyday markaasuu ninkiiba uu yaabo wuxuu yidhi ninka khaadimkiisii ku haysta faynuuska maxaad u damin weyday
may kula tahay inuu adiga lacagtii aad gogol iyo dhar iyo weelal islaanta caawa aad caroosada aad ugu iibin lahayd inaad ka heli ilama abu yidhi iska kacay ismaan baa ninkii u yeedhay war kaale xaggeed u socotaa wallaahi dee waxaan u socdayba war kale ahayd war kale aan meesha ka socday buu yidhi markaas maxaad aragtayo maxaad u socoto dee nebiga ii ka soo diray buu yidhi sal alla alay slam oo yidhi cusmaan u tago waxaad ku tidhaahdaa waxau nebi maxamed ku amray wixii caawa aan carooska iyo reerkayga aan ku aqalgelin lahaa hadday gogol tahay hadday dhar tahay hadday biil tahay hadday weelal tahay cusmaan ka qaad buu nebigu igu yidhi dee maxaad u kacday bood igu sheegi weyday dee waxaan arkayaa ninkaaga faynuus ku dagaalamaya wax bixinaya buu yidhi faynuus baad ku dagaalamaysaa ood ku haysataa qaadimkaagiiya wuxuu yidhi dhegaysa buu ka yidhi faynuuska halkaa iska shidmaayey shaqo adduunye iyo shaqo aakhira midna laguma hayn laakiin tan adiga ku siinaayo waa tii halkii loogu talagalay ku baxday hoo qaada buu ka yidhi kiish lacag uu dhiibay israafka iska ilaalinayeen xoolahooga meeshay ilaahay ugu talagalay ku bixinayeen meesha ilaahay u diidayna xoolahooga way ka ilaalinayeen innagana caroos baa lagu leeyahay $30,000 bay ku bixiyeen caroos $30,000 bugbac fanaaniin baa loo yeedhay fanaaniin maxaa ka dambeeya laba reerka bugbac iyo macsiyo lagu dhiso 2 bilood ma gaadhaan way kala duulaan ilaahay uu kala qaadaa markiiba laana marka hore macsiyo lagu dhisay diin iyo alla ka cabsi laguma dhisay israaf baa lagu dhisay baatil baa asaas looga dhigay muslimku war muslimku dhaqaalihiisa xor uma tijaaradaada xor uma tihid waa inaad xataa cilmi albayci washaraa culimmada kaalayo weydii cumar bnu khataab suuqa madiina intuu galuu odhan jiray laa yabic fii suuqina haada ilaa man tafaqaha addiin waryaada suuqayaga nin wax ku iibin karaa ma jira buu cumar odhan jiray ilaa nin miskiidka nebiga intuu tegey cilma albayci washaraa culimmada ka soo bartay mooyaane innagana maanta cid walba ganacsi bay bilowdo china iyo tayland baa laga wada duulay habrihii baa socdoo kule china u socotaa xaggeen u soconnaa war muumin waxaa la doonaya inaad noqoto muumin labada indhood ee kugu taalla ilaa adduunyadaada ku eego ilaa aakhiradaada ku eego aakhiradaada iyayna adduunyada ku seejin adduunyadana waa in yar waxaan joogaynaa in yar walaalayaal intaa yar een joogno ilaahay ha kaga baqno oo diin ha ka qaadanno oo diinteenna ha baranno oo diinteenna ha ka shaqayno oo zaman adag baa lagu jiraa zamankeen lagu jiraa almutamassiku bidiinihi kalqaabidi cala aljabra buu nebigu yidhi waa zamanuu nebi maxamed sii sheegay 1400 oo sano ka hor ninka diinta maalinta idhahda waan xajisan waxa uu ka dhignaan doonaa nin dhamac loo dhibay buu rasuulku yidhi bulshadaad ku nooshahay maanta eeg waa mujtamac khayrkoogu yaraaday sharku batay meeshaad u baxdaba ishaadu waxay ku dhacaysaa ma waxa ilaahay ka farxiya mise waxa ilaahay ka cadhaysiiya mujtamac waa mujtamac qofku hadduu yidhahda maanta sunnaha nebiga ku faraaday way adkaanaysaa inuu qabsado ilaahay u dhib yareeyo mooyaane marka zaman adag baan ku jirnaa waxaan kaga badbaadaynaa waa maxay rujuuc ila diin inaan diinteenna usoo noqono oo dadaalka diinta ay culammadu mar walba inoogu baaqayaan ee masaajidda laga naadinaayo ee maraakista laga naadinaayo ee madaarista laga naadinaayo ee ijtimaacyada loo qabanayo ummadda loo fikiraayo war dadaalkaa diinada maanta caalamka ka socdaa la rabaa caamadeennu inay culammada intay garab joogsato aan meel keliya u wada jeesano insha allah dhahada taa ma guddoonnaa dadaalka diinta mise dhegaystayaal wanaagsan baan noqonnaa yaa dhegaysto wanaagsan waxa ka wanaagsan dhegaysigu waa min addiin weeyaan laakiin waxaa la inaad noqoto adiga laga rabaa inaad diinta qaybtaada ka qaadato waad ka qaadan kartaa saxaabada rasuulku nin walba salaaxiyadii ilaahay uu geliyey ummaddu ku anfacay kii cilmi lahaa cilmigu ummadda wax ku taray kii dhaqaalo lahaa dhaqaalu ummadda wax ku taray kii raganimo lahaa raganimadu ummadda wax ku taray kii wajahad lahaa wajahadiisu ummadda wax ku taray عثمان بن عفان عمر بن نبي قدري مكة مركي صلح الحديبية وكعذر دارت عمر وعد عنيق ما يقول عثمان باكون مناسبة بولي عثمان باكون مناسبة عثمان بن نبي قدري الدل ورنتي عثمان هذول تك
khaalid bin waliid geesinimadii raganimaduu lahaa ummaddu wax ku taray maalintuu soo islaamay buu nebiga seefta u keenay seeftan iga qaba buu yidhi ilaahay dembi dhaaf ii weydii maxaan kaaga qaadaa seefta ii sheeg intaasoo muslimiina ku laayay buu ka yidhi kaa qaadi maaye intaad muslimiin ku laysay in ka badan inaad cadowga ilaahay ku laysaan kaaga rajayne qaada buu yidhi seefta oo ilaahay diintiisa u jihaad waa raganimadiiba xagga kale loo bedelay bas kii caalimka ahaa cilmigu ummadda ku anfacay kii dhaqaalo lahaa dhaqaalihiisu ummadda ku anfacay zamankii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam waxa uu nebigu diyaariyey ummad nin walba salaaxiyadda ku jirta loo isticmaalayo diinta dadaalkeeda marka innaguna kulligeen insha allahu tacaala khayr baa inaga muuqda khayr jacayl baa inaga muuqdee dee insha allah dadaalka diinta dhinac kastaba dadaalka diintu waa leeyahay wallaahi waan runtaan inii sheegay macallinka qur-aanka dhigaya dadaalka diinta qaybtiisiibuu ka hayaa sheekha masaajidka darsiga ummadda marinaya dadaalkii diinta qaybtiisiibuu ka hayaa jamaacadada ilaahay dartii u socda qaybtoodii bay diinta ka hayaan muxsinka dhaqaalihiisa masaajidda iyo madaarista ku dhisaya diinta qaybtiisiibuu ka hayaa qofka muslimku diinta intuu ka qaadan karo uu ka qaadan karaa wactasimuu bixabli illaahi jamac baa la sheegay jamac hal nin kastoo muslima diintaasi wax waad u qaban kartaa war u qabo kelimadda wanaagsan buu nebigu yidhi waa sadaqad kelmadda wanaagsan dariiqa muslimiintu ay maraan ninkii ka gooya geedka buu nebigu yidhi hee jannaduu galay buu rasuulku yidhi jannadaan ku arkay buu yidhi haweenaydii masjidka nebiga marka laga dareeray imanaysay ee ka qaadaysay maaragtaanay waxa masjidka nebiga ku daatay ka qaadaysay markay dhimatayna waa laga qariyo nebiga looma sheegina waa la aasay markaanuu nebigu yidhi jannadaan ku arkay buu yidhi jannadaan ku arkay jannadaan ku arkay maxaad iigu sheegi weydeen buu nebigu yidhi khayrku yaryaraysi ma leh marka waan inagu dheereeyey insha allahu tacaala wixii wanaag iyo khayr soo dhex marina ilaahay bay soo dhex mariyey anigana miisaanka xasanaadka allah ii saaro ikhlaaskana allah noo wada ziyaadiyo culimmadana soo dhaweysana waxaan leenahay jazaakum allahu khayr sheekh maxamed waxaan leenahay markiisaan u marti kumehiye waan deganahay ya deganahay maasha allah ciyaalkii reerkii oo dhan baa jooga marka allahna naga wada raalli noqdo kulligeen hada wasala allahu calaa sayidina muxamed بسم الله الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وعاف مبتلانا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل